oo nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam afar arimood ruuxii dhexdiisa laga helo waxba ma yeelayo wixii adduunyo ee dhaafa adduunyo wixii seega waxba u noqon maayo laana wax kaga filan buu ilaahay siiyay oo ka deeqa adduunyada ha noqoto xoolo ha noqoto caruur iyo ahal ha noqoto jaah iyo kursi iyo mansib magac ha noqdo adduunyo ku dhaaftay oo ku seegtay ama aad weeday waxba kala ma maqna hadii ilaahay tabaaraka wa taala afarta arimood ku siiyo arinta koobaadi waxa weeye sidq alhadith in ilaahay ku siiyo sheekadaada iyo hadalkaagu inuu run noqdo beentana ka ilaaliyo inaad run low noqoto dhaqanka alla dhaqmayso adoomada ficilkaaga iyo dhaqankaaga iyo afkaaga iyo adinkaaga inaad ka run sheegto tacaamulka rabbiga alla mucaamaloonayso inaad ka run sheegto sheekadaadu inay noqoto sheeko run ah wax beena inaad iska ilaaliso qodobkaasi waa qodobka u horeeya wuxuuna ku tusayaa oo tilmaamayaa ruuxa runlowga ah inuu iimaan leeyahay bay ku tus ruuxa beenta badanna calaamad munaafiqnimo ku sugan sida nabiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh munaafiqa calaamaadkiisa waxaa ka mida markuu sheekaynayo been buu sheegaa calaamaadka lagu gartay ka mid allana tabaaraka wa tacaala waa ku qirayo wallahu yashhadu innahum lakaadhibuun alla wuxuu qirayaa oo cadaynayaa inay beenalaal yihiin beenalayaal inay yihiin waxa qalbigiisa ku jira iyo ficilkiisu isma waafaqsana waa beenaale carabka iyo afka kama run sheego waa beenaale markuu sheekaynayo sheekada wuxuu ku xaladeeyaa oo ku xardhaa been ama iyadoo dhan baaban aslanba aan sal iyo raad lahayn calaamaadka munaafiqiinta beenta noocaasina waxay u jiidaysaa fujuurkuna naar buu u jiidi ruuxuna beenta dayn maayo siduu u wado wuu la qabsan wuu baran dhaqan iyo caaday u noqon ilaahay agtiisa loo qoro inuu yahay been badane diiwaanka saasa ugu jirta ruuxu inuu runta ku dadaalayo ka zuuli maayo runna sheegayo ilaa runtu ay u jiido biriga wanaag bay ku jiidaysaa irido badan oo khayr ay ku furaysaa biriga iyo wanaaga faraha badanna jannadu ku jiidaya ruuxuna ka zuuli maayo inuu run sheegayo oo ku dadaalayo ilaahay agtiisa looga qoro waa run badane adoonkii runta badnaa sidiiq waa ilaahay agtiisa looga qoro tabaaraka wa tacaala nolosheena marka aynu ku dadaalo runta aan ku dadaalo beentana aan iska ilaalino waayahan dambe beentu waxay noqotay shay aan loo aabayeelaynin khaasada iyo caamadaba in yaroo ilaahay u naxariistay mooyee suuq wuxuu noqday nin walba ka ganacsado suuq wuxuu noqday nin walba uu siduu doono u galo uga baxo waxay noqotay waxaan loo aabayeelay waxayna ku tusi diin yari iyo diin xumi bay ku tusi bal beenta midii ugu fuxshi badnayd ee ugu fool xumo badnayd baa la dabaalanaya oo laga ganacsanaya oo lagu jira maxay tilmaamaysaa nin hooyadii intuu gaalo horgeeyay kule waa xaaskaygii fuxsh nin naag ajnabi ah intuu xafiis geeyay oo qaadi muslim iyo sheekh horgeeyay yiri waa isqabnaa walaashii kaxeeyo yiri waa xaaskaygii yaa jamaaca ayna diin away diinti away akhlaaqdi
aaway dadnimadii aaway aakhiradii maxaa la raadinayaa luqmad yar oo ceesha la raadinayaa oo la garanaynin ma la gaari doonaa mise lama gaari doono ma la heli doonaa mise la heli maayo sidqul xadiis adduunyo dhan ha ku dhaafto ha ku seegto laakiin waxaa ka qiimo badan ilaahay inuu kursiiyo inaad runta sheegto wax lagu badashana male qodobka labaad ee nabigu tilmaamay salawaatu rabbi wa salaamu calayhi waxa way xifdul amaana inaad amaanada ilaaliso amaanada ilaahay adiga idin dhaxays takaaliifta iyo xilka uu ku saaray waxa uu ku diray iyo waxa uu ka reebay amaanada khalqigu kugu amaanaysanayaan ee ku dhiibanayaan xoolaa lagu dhiibtay sir baa lagu qarsado lagu dhiibtay amaanada inaad ilaaliso ayadana waa qodobka labaad hadduu ilaahay ku siiyo waxba adduunyo kala ma maqna macnaheeda gudaha weyn ee aan khaaska ku ahayn muaamalada khalqiga ee ilaahay tabaaraka wa tacaala takaaliifta uu ku saaray oo dhan inaad ilaaliso waana mid dadku ku kala bixi doonaan ilaahay marka loo tago waa dunyada la dhaafo oo aakhira la tago ala hada al-asas baa lagu kala bixi doonaa oo dadka qaarna saciira aadi doonaan qaarna janno aadi doonaan sida rabbigan inoo tilmaamay tabaaraka wa tacaala amaanadan waxa loo bandhigay samaawaadka iyo dhulalka iyo buuraha way diideen waana ka baqeen inay qaadaan culayskeeda insaan baa si xambaarsaday qaadiduu qaadayna wuxuu ahaa mid jahli badan oo dulmi badan buu ahaa maxaa loo laysu saaray liyu'adhib Allahu al-munafiqina wal-munafiqat wal-mushrikina wal-mushrikat qoladaasi waa qoladii amaanada ku dhacday qolada ka dambaysana waa qolada amaanada ku baastay ee ilaalisay ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات كل بأمانة ساقوا إلى لسه فمصير كاي آيهاغو كحرين أمانة إلالي خيانة نسك إلالي نبي قلنا صلوات ربي والسلام عليه قال ذي بلنت أي وذقلي تشلين أي وحا لغيري حداد كبقضو قل أحدي يبلنك قولت شره inay amaanada iyo ballanka kugu khayaamaan hadaad ka baqdo ha khayaamin si adiga iyagu aad u simantihiin ballantooda u tuur maxaa yeelay ilaahay tabaaraka wa tacaala ma jeclo dadka khaa'imiinta hatta ballantiya amaanada idinka dhaxaysa hatta gaal ha kala dhacayso maxaa yeelay khiyaanada muslim lama khayaami karo gaalna lama khayaami karo وخلق لدونا يروح مسلم كائنه معاملات كيسو دن او كو كنترولاد او خيانه اسك الهي الى النبي جنو يراهد صلوات ربي وسلام عليه امانه waxaad u gudataa cidii ku dhiibatay kugu amaanaysatay hana khayaamin cidii ku khayaanta cidii khayaana kugu la kacda khayaanaha kula kicid maxaa yeelay khayaanadu ma aha shay gali kara in la isaga argoost waa xaq ilaahay oo khaalis ah marka ma aha in aad khayaanada dhaqan ka dhigato ayadana waayahan waxa aad u badan oo nolosheena ku badan inaynu iskhayaano dadkana aan khayaano mujtamacaadka aan la noolahayna aan khayaano ila aan caan ku noqonay oo ku caanbaxnay بنت خيانة iyo waxa la sameeyay xogaa xoolaa baa lagu helayaa xogaa xoolaa baa lagu helayaa gaal la khiyaamaya dad loo tagay oo muslim nadiifa ku haysta baa loo tagayaa markaas la leeyahay isma qabno asaguna gooni buu rabaa inuu wax u qaato ama mas'uuliyadda reerka laga qaado haweentuna waxay rabtaa xogaa inay gooni u qaadato isma qabno sanad kastana waa la kala dhalahayaa maxaa lagu kala dhalahayaa naanin maadan qabiila maxaa ilmahan ka keenay waxay leedahay ma saaxiib baa iga dhalay ajiib saaxiib baa ninkeedii waa joogaa laakiin waa dhuumaalaysanaya muxuu u dhuumaalaysanaya waxoogaa buu raadinaya markaas la gubtay oo ilmihii rogmadeen
oo guryihii baaba'een oo waxba soo hadhin khiyaanada lagu samaynayo dadka lagula kacayo iyo beenta lagula mucaamaloonayo nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu calayhi wuxuu tilmaamay amaanada aakhiru zamaanka in la qaadi doono oo dadka quluubtooda laga saari doono ilaa la yidhaahdo waryaa amiin ah ree hebel nin amiina ku jira ummadan iyo mujtamac dhan ilaa la yidhaahdo hal ninoo ammaano le baa ku jira waxaa cajiib ah oo wax aada loola yaaba ah sharikaadka iyo ganacsiga iyo tacaamulaadka khiyaanadii baa iyadana hadhaysay xoolihii dadkaa la ururin tijaaraad iyo ganacsi baa lagu ururin dad magacle baa ururinaya dad wadaadnimo muuqdaa ururinaya hantidii ummadda marka la ururiyo xifdigay u baahnayd iyo juhdigay u baahnayd iyo ilaaladay u baahnayd lama ilaalinayo waa la dayacaya bal qaarkood jeebkay ku guranayaan markaasaa waxaa la leeyahay shirkaddii way khasaartay way duntay maalin bay kala dhaqaaqday lacagtii baa lala kala dhaqaaqay khiyaana xaggee la geyn doonaa waa ilaahay tabaaraka wa tacaala ha laga cabsado adduunya maanta la joogaa waana wakti yaroo aada u kooban allah la hortegi doonaa tabaaraka wa tacaala jeebka buuxso oo jeebabka buuxso oo akownada buuxso oo gurye ka dhiso laakiin waxaad ku tala gashaa rabbi baad hortegi doontaa tabaaraka wa tacaala waadna ka dhaqaaqi doontaa waxan allah ka baqa tabaaraka wa tacaala xifdu lamaana dadnimo waay dullinnimo weeye inaad khaa'in tahay magac xumo wey diin xumo wey qodobka saddexaadi waxa weeye ee nabigu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh xusnu lkhuluq akhlaaq wanaagsan dhaqan wanaagsan mucaamalo wanaagsan inaad khalqiga kula dhaqanto khaaliq innaasa bikhuluqin xasan midka kaa yar u naxariiso midka kaa weyn ixtiraam oo qadari midka baahan waxtar midka dhiban u naxo u naxariiso midka kula eg ixtiraam khalqiga sida aad u jeceshahay waxaad adigu jeceshahay kula dhaqan akhlaaqda wanaagsan wuxuu nabigu ku tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh wax miisaanka la saara iyada u culus ruuxa akhlaaqda wanaagsan lana maalinta qiyaamada ilaahay agtii tabaaraka wa tacaala wuxuu gaadhayaa darajada uu gaadhayo ruuxa habeenkiina salaad u taagnaan jiray maalinkiina soomanaan jiray maalinna waa soomay habeenna salaad buu u taagay darajadaasoo kale waxaa iska leh ruuxa akhlaaqda wanaagsan ee dhaqanka wanaagsan ee dabacsan ummadda u naxariista masaalixdeeda ka shaqeeya danaheeda u orda ummaddan muslimka ah yacni akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan kula dhaqan keligeed maaha xataa gaalada dhaqankaa wanaagsan ee nebigu ka tegey salawaatu rabbi wasalaamu calayh ee saxaabadiisu ka dhaxleen ay taabiciinta dhaxal siiyeen ee dhaxalkaa inugu soo gaadhay dhaqankaasi waa midka sabab u noqday khalaa'iq fara badan inay diinta islaamka soo galaan khalaa'iq keliyata mucaamaladooda iyo dhaqankooday ka heleen markaasay diinta soo galeen waa jeclaadeen lianna mabda'a waxaa lagu jeclaadaa dadkiisa in badanna mabda'a waxaa lagu nacaa dadkiisa maantana waxaa in badan oo dadka aan islaamka ahayn ka hortaagan inay islaamaan dhaqan xumadeenna akhlaaq xumadeenna tacaamul xumadeenna ma dadka sidaasee qaabkaa u yaallay khaa'iniinta ee beenalayaasha ee dhaqan xumadaa ku kacaya baa diin haysta ma dadka dhiiggaa daadinayaa diin haysta ma dadka saa isu burburinayaa diin haysta ma dadka xoolaha saa u cunayaa diin haysta ma dadka sidaa bini aadamka ula dhaqmayo xuquuqdiisii baan yeelin baa diin haysta haddayaa diintaada soo aadi waayo haddaad wax fiican haysato aday kaa muuqan lahay su-aasha la isweydiinaya taa iyadaa allah aan ka baqno tabaaraka wa tacaala dhaqankeenna aan dib ugu noqonno akhlaaqdeennana aan dib u muraajacayno wax badanna hala bedelo waxay noqotay waayahan dambe dhaqan xumada iyo akhlaaq xumadu shay laysaga daydo khaa'inka iyo beenaalaha iyo magac buu leeyahay waa siyaasi baa la leeyahay waa nin reer magaala leeyahay waa ilbax baa la leeyahay waa mutacallim baa la leeyahay
magacyo wanaagsan baaba la siinayaaba marba hadduu khaa'in beenaala u yahay oo dhaqan xusnul khuluq akhlaaqda wanaagsan usuusha diintanay ka mid tahay innamaa bucithtu liutammima saalix alakhlaaq qodobka u dambeeya afraad ee nabigu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi haddii lagu siiya adduunya ayna waxba kaala maqnayn waxa weeyaan cifatu matcam waxaad quudanayso iyo waxaad cunayso iyo waxaad gaadiid ka dhiganayso in ay xalaal tahay xalaal aan xaraam ahayn calooshaada aada ilaaliso waxa gelaya ka taxadarto meeshaad wax ka kasbanayso inaad iska ilaaliso kasabkani xalaal ma yahay kasabkani xalaal ma yahay nabiga waxaa ka sugan sallallahu alayhi wasallam inuu yidhi xadiid xasan ah diintiina waxa ugu khayr badan xalaal miirashada diintiina waxa ugu khayr badan xalaasha inuu ruuxu ku kaaftoomo xaaraantana ka kaaftoomo marka xalaasha lagu dadaalo waxaad cunayso laga fiirsado waxaad cabayso laga fiirsado kasabkaaga la ilaaliyo wax alla wixii shubha oo laga fogaado laana diintaaday dhowrid u tahay dadnimadaada iyo magacaagay dhowrid u tahay aakhiradaada dhowrid u tahay hamigaagu yuusan noqonin wax alla waxaan ku cuninba waa la cunaa hamigaaga taaha ka dhigin ee wixii xalaala la cunaa wixii ilaahay ka xarimayna waa laga cararaa maxay yeelay xaraamtu markay ku gasho diintaaday gubi oo gurigaagay gubi oo caruurtaaday gubi oo barakaday ka qaadi oo mustaqbalkaagay halis gelin intaad aakhiraba la gaarin baad adduunyada ku gubanaysa waana in badan oo dadka kamida mid haysata khaasatan ribada oo dadku aad ugu daateen tacaamulka bunuugta lala muaamaloonayo oo waayahan aad u batay in badani waxa soo korodhay waayihii hore bunuugta ribada ee wadanka ka jirta waa laga taxadari jiray laakiin intay soo baxeen bunuugtan islaamiga sheeganaysa oo khaladaad badani uu ku jiro hadadaalaan laakiin khaladaad fara badan baa mucaamalaadka ku jira dad fara badan baa dhexda baasha oo ribadii dhex fadhiya oo aan aad uga warhaynin oo xusnu niyyo ku galay yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat Allah tabaaraka wa ta'ala waa ku rogaya waana ku baabiinaya war xaraanta ka fogaad waqti waxaynu joognaa caalam waxaynu maraynaa maadada la caabudayo shilinka la caabudayo dollarka la caabudayo mabda kala ruuxuusan lahayn subaxdii buu kalahayaa in dhalaan buu suuqa ku galayaa meel wax alla wuxuu arkaba waa qaadaya maxalaal ba maxaraan ba dan kamale war inaad gaajaysnaata ku dhaanta kasab xaraana inaad hesho inaad taajir milyaneer noqoto xaraan ka dhargay ilaahay baan ku dhaartay inaad iska gaajaysnaata ku dhaanta xisaabtaaduna fududaato cinda Allahi tabaaraka wa ta'ala sida nabigeena ka suganna hatta tijaaradu xalaal baha ahaatee xoolaha faraha badan waxa nabiga ka sugan salawaatu rabbi wa salaamu alayhi fuqarada iyo dadka masaakiinta iyo dallaydu 500 oo sano ayay jannada uga horeyn doonaan tijaarta xoolaha leh hatta ku xoolahoodu xalaasha yihiin maxaa yeelay waxay heleen ay kasbadeen ay jamciyeen ba inta laga xisaabinaya miskiinkani wax laga xisaabiyo badan ba male horay buu jannada u aaday taajirkii xoolihiisu xalaasha ahaayeen haddii 500 oo sano la xanibay oo lala xisaabtamo meesha lagu hayo ma baaluka ninkii xaraan buuxsado iyo jeebabka buuxsaday cifatu mat'am ilaahi laga yaabo tabaaraka wa ta'ala aakhiraha lagu xisaabtamo oo waxa aad cunayso ku dadaal inuu xalaal noqdo iyo waxaad xidhanayso iyo waxaad kasbanayso haddii kale waxay saameyn doontaa diintaada cibaadadaada bariyadaada amalkaaga iyo mustaqbalkaaga iyo aakhiradaada